السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ومركلي عشرداني MS Word 2016 ayaan isticmaalaya halkan waxaan doonayaa inaan kusoo bandhigo cashir ku saabsan shan dhibaatooyin oo alaba lagala kulmo isticmaalka shaxda MS Word waxa la dhaho table lagu yeero oo waa kuwan shan dhibaatooyin aad la kulmi karto oo 5 common problems that you may encounter using tables in MS Word. marka midda koowaad horaan u gelayaa midda koowaad table koowaad ama shaxda koowaad aad u jeedaa waa name, description, quantity, marka waxa waaye content beyond page boundaries. macnaha table-kii ama shaxdii oo qayb kamida muxuu ahaa derbiga warqadda muxuu ahaa ama shaashada u gudbayo beeri dhinacaas ayuu hadda ku jiraa dhinacaas ku jiraa halkuu dhinaca kale tuu caadi uga muuqdo halkan uu sameyn yahay kan halka dhinacaas ku jiraa already halkaas ku jiraa uu qarsoomay. marka maxaa lagu xalinayaa markii nooca waxaas kala dhacaan waxyaabahaas kala badan waxay ku dhacaan for some reasons ay ku dhacaan lama ogo laakiin inta badan laba sabab ay u dhici karaan. tusaale ahaan waxay dhici karaan mar ma aragtay waxa aad halkan ku qortay table-ka aad meel kale ka soo koobisay oo web oo kale ka soo koobisay ama table-kan inaad ka soo qaaday asagaba ka soo koobisay office application-yadiisa kale sida MS Excel iyo PowerPoint oo kale hadda table intaad ka soo koobiso Word aad keento way dhacdaa arrintan oo kale way dhacdaa. marka maxaa lagu saxayaa waxaad sameynaysaa marka hore horta qofka markuu waxaan oo kale arko inta badan waxa uu isku dayaa inuu isticmaalo cell boundaries waxa la dhahaa leemankan cellka intuu sidaas oo kale u qabto inuu jiido ma aragtay uu sidaa uu sameeyo laga yaabaa inaad ku xaliso laakiin waqti kugu qaadanaysa laakiin sidaa ma shaqeynayso waa manual adiga marka waxa la rabaa inaad isticmaasho automatic oo table loogu talagalay oo Microsoft ay ugu talagaleen qaabka lagu xaliyo waxyaabahan oo kale. marka waxa sameynaysaa qalinkaad anywhere qalinkaaga meelaad click isaga dhigaysaa table-ka dhexdiisa ama shaxda dhexdeeda ama waa wada highlight gareena calaamadan yar oo afar geeska halka ka muuqato marka qalinka saa ugu dhufato table-ka halka ka muuqato aad click dhigaysaa asaga dhan baa sidaas hadba korayo oo highlighted noqonaya markuu sidaa noqdo then ka adeego ama haddaad rabto meel uu dhexdiisa isaga dhufo kadib waxaad aadaysaa layout-kana layout-ka markaad tagtid ama laba meelaad ka aadi kartaa layout-ka markaad tagtid waxaad sameyn kartaa then waxaad sameynaysaa halkan waxaa ku qoran autofeed kaas ku qoran halka fanaxdaad qodaysaa then waxaad sameynaysaa halkan waxaa ku qoran autofeed to window macnaha shaashadaad la ekaysiinaysaa inuu shaashada si fiican ugu soo beegmo ayaa dooranaysaa halkan macnaha shaashadii ku soo beegmaya oo si fiican ugu soo beegmaya marka waxa la halkan aan taabanayaan tuujinaya click uu soo noqonaya marka caadi waa marka si toos shaashada ugu soo beegmaya labadii derbi ee shaashadana si toos ayuu midba dhinac kale mid muxuu ahaa in la dhanbu u jiraa tan kale. okay sidaas marka ku xalisay arrintaas dawaad xalisay qaabkaas lagu xaliyaa haddii aan dhaho aan dib u laabto hadaad waxaad sameyn kartaa adoo halka joogo intaad halka wada taabato asagoo dhan wada highlight garayso kadib baa right click dhihi kartaa then right click markaad halkan aad ka helaysaa outfit-ka halkan keenaysaa then waxaad iska to window macnaha shaashada la ekaysiiyo weeyaan intaa furan ee bogga furan la ekaysiiyo diyaar waay marka uu kusoo beegmo diyaar waay. table-ka xiga number 2 space wastage waaye wax kale ma waxa waaye fiiri xagga waxa ku qoran name xaggana description xaggana quantity waa magacii iyo faaladii iyo qadarkii uu la dhanaa waxan ay tiradii ay dhanayeen. marka xaggan waxa ku qoran magac Cabdi Cali Nuur waxa space oo ka dambeeya fiiri intan oo dhan ba ka dambeeyso halaan dhan ba ka dambeeyso la isticmaalin loo kana sidoo kale xaggan waxba isku soo dardarmay. marka waxyaabo badan aad ku xalin kartaa qaab badan aad ku xalin kartaa laba nooc ila saddex shay baad ku xalin kartaa waa inaad sameyn kartaa halkan intaad dhigto qalinka tusaale ahaan halka intaad dhigto marka u horeyso halka intaad qalin markuu qalinkaaga uu noqdo istilaab noocaas oo kale uu noqdo intaad halka ku toosiso istilaab markuu noqdo double click laba jeer click garee okay saasuu noqonayaa naftirkeeda wax weyn tanna iyadana sidoo kale sida labada dhinac waxaas dhan noocaas ku xalinaysaa waxa hadda jawa xaliyay way dhamaatay laakiin two shots aan hadda ku xaliyay one shot ku xalin karaa marka hal mar aad kaliya garayso waxaad sameynaysaa anyway machine iska kaliya garaysa ama asaga dhan halka taabo wada highlight garay oo markuu sida highlight u noqdo xagga aad layout then waxaad tagtaa autofeed markaad tagto waxaad dhehaysaa autofeed to content halkan ku dhufanaysaa click then diyaar waa marka
wixii way xalismeen tableka noocaas uu noqday waa ka tableka ka sareeyay la mid noqday waa ka markii wax space oo hadda naga qasaaray malaha waa ka wixii dhanba sidaas isku aadeen quruxda isku aadeen perfect lambarka saddexaad waxa weeyaan an even row height tablekan haddii aad fiiriso leemanka uu ka samaysan yahay gudaha meel kasta waxa ku qoran ka iyo waxay ku qoran yihiin كو لابو سدح يا أفر يشان أنتوا ذا سويس لو ذا يجين جدا هان بلعهان جداها لكن تنو يكون تها معركتها ويكون تها تن لين بقص والله والله مو يكون تها مركب الله حرسمي أضرب طور رباطي وحاسب العد قلنا سنة فلما كل سنة وحقق سنة إن إسلو ذا بيني عند ما أنتوا مركا روجي هايتكي دار الكودس لما يكون كان دار الكيس سفيرين تولدين الله الكاسودي لكن مو يتجاوبين أو عادش جوجي سنة ولا علشان okay. So iyadoo naftirkeeda marka waa la xalin karaa qaab badan ku xalin kartaa xitaa inta jiito iska dhigi kartaa halka inta geesadeen caaka diyaar u noqonaa waa xalli waa diyaar ka iska xalis markay ama ma ahaan halkan aan tagaya double click sida hadda ku sheegay double click yaan dhaaya oo ku sii wadaya hadda rabo dhowr jeer okay waka markii uu dambeysay uu xalis macaali noqday oo isla ekaaday okay laakiin أن وحرمنا إن المتقن عن إسلاء كسينو وحد يخرتنا هذا واحد كان سمو وينها كان ويري هاي ذا حسمين كرا كان هالمرقلين كرا أنت كعنت إذا قسمين علشان ساس أكله إسلاء كذا هذا سما تعرف كنا قدرة در وإسلاء وذا كذا سما ها ساس ومني والله ما أقوله it's not right مركا أندو بنده حسمين سمركا سفروت هذا ربطنا كحلسه وحسمين سا adaga hadda spacekii waxaas kama fikirayno waxaan ka fikirayno waxa waaye waxaan rabnaa inay isla ekaadaan gudaha dhumaca gudaha saleskan ama gudadkan inay isla ekaadaan waxaan sameeynaa marka halkaasaan highlight halkaasaan ku dhufana tableka dhan baan highlight saaraya kadib haddii home aan joogay idan waxaan imaanayaa layoutgaas markaan imaado waxaan dhahayaa distribute row halkaas u jeedaa halkaasaan taabanaya distribute row markaan dhaho ka arrintii waan xalinay waa diyaar waxa ويسلا وضع كذا نوجده سوسي أوتوماتيكاً هذا كواحد واسيد اللوجو تلاقي ده distributors road كاس distribute row ماشي سكو قرن وواحد لوجو تلاقي له لوجو حل دلوقتي يمكن نعسك لما كسيد هذا كمانيوال كعادي هذا نوجي جديد نأكله إن هذا حل اسم معها أوكي ولي تابلكم واحد كلا تاكل قلدن أو هراء أو كسبراني واحد كسبراني حاول تابلكم في إسلاك بوجرة لوضع الدربية والخدة كان السيد وكله لكن كانوا مجرى أنتوا ودويه أوكي سو أصلنا مرة لبعض حتى نكسي حلنا نارنتي هنتجينا auto feed then auto feed window علينا كا وحاجة يا مركا ولا كأنا وكاسيد تبغى لذي كلا تقول نقولي ولي وحكلا دمان أو ولي تتبغى كان أنا ربنا عندنا كفهنو قرالك جودها كجرا هذا أوفيسته قرالك جودها كجرا تبغى كان أما شاهد هذا أوفيسته حوا قرالك يقدر يكون دقيقين حاجة سريع بوكسكا كانوا كلا فيه حاجة سرو كود دقيقين حاجة هوس سبيس أنا أقول حيا سجيه qoraalkii iyo qaybta hoose goodkaas xaggan sidoo kale kulli wada fiirsan xagga sare ku wada dhagan yihiin goobta ay ku jiraan qaybtada sare ku dhagan yihiin marka sidaas markii aad report wax noocaas aad qorayso ma qurux badno qofka akhrisanayo reportkaaga sidoo kale hadda ku geysana wuxuu amal u fahmaya inaadan garanaynin sida loo format gareeyo ama loo nidaamiyo tableka marka inaad nidaamisaal rabo waxaa la rabaa in qoraalkan ay dhaxda ku wada hagaagaan هذا قلنا كوسمينا هذا ما هجاجي سنة من أنا شكله في الهوس وبوده هذا محل اسمه مركو واحد لو تلقى جلاجستو لو حلين كرو حسمينا ساعة استقدم بعض هايلايت جريني ساسو هذا هايلايت جرينا ساعة حركة سارة سكدي بحتى جالس layout هلكا ما تيجي من رايت كليك نوادي كرتا ورينا عقلت كعادي كرتا هلكا مركاد مرس وحد ما نسا بوك قيب تنفير alignment هنا دما نسا then waxaano idil marka fiiri hadan kan hadda ku dhufto kan waxa ku qoran hadda inoo saaran qalinka waxa waaye align top left waa sida hadda ay tahay top left waa xagga sare boxka ay ku jirto iyo dhinaca bidixda u wada kulligood hatta tan fiiri dhinacan ku dhiganta dhinacan kuma dhigano kuwana qoraalkan bidixay ku dhigan yihiin laakiin bidaxa ku dhigan hadana sare ugu dhigan yihiin marka hadan tan ku xigta aan imaado waxa dhacay fiiri table waxa ku dhacay dhag hadan siiyo waa ka course macnaheedu muxuu ahaa taayada align top center واي يا توب واي ولا حاجة سري كل جنتها لكن center box كده حديث برتمه ما ذن فيرك وانا هالكنا يسكت تحن وانا هالكنا يسكت تحن مركور حاجة بديه كل جناين رايت كان كلام سمعنا هذانا لنا عميلك تكون جاية مركز هذا سمعنا وكان لنا عميلك تكون جاية اوكي لنا عميلك تكون جاية then حاجة إمو حاجة هوسان إيمانا يا
ومحا كو قرنا حق هوسه waxaa la dhahaa align bottom left waa bottom left waxa way qoraalkii idil xagga hoose ku dhigaya opposite kii noqonaa marka hore waxay xagga sare ku dhiganaa oo bidixda xagga hadana wuxuu ku dhigayaa xagga hoose ee bidixda uu ku dhigayaa hadana halkan samee halkan tag tabal ku dhufo ka wuxuu sameeynaya xagga hoose ku dhigan yahay laakiin dhaxdi buu tagayaa okay hadana halkan tag okay dhaxdi buu ku dhigayaa xagga hoose ku dhigayaa laakiin dhinaca midigta hadana kan hadaan tago sidoo kale dhaxdu ku toosaya marka aniga hadda aan doonay marka inaan sameeyo waxa waaye waatana waxa la dhahaa align center left dhinaca bidixda ku wada dhiganaadaan dhamaantooda hadana dhaxda seelka ay ku jiraan magudka ku jiraan bartankiisa ku dhiganaadaan halkaas ku dhufanaya waka wixii marka way xalismay waka diyaar waka hadda qoraalkii oo dhan wuxuu ku hagaagay qoraal kasta wuxuu ku hagaagay bartamahaas uu ku hagaagay dadka riboodada qoroma tablada hagaajiyo waxa lagu gartaa inuu qofka aad iyo aad waad u garanaynin tabladana lagu kala gartaa dad badan markay tableka inta iska sameeyaan oo waxay iska qorqoraan bay sida kugu soo dirayaan tableka wala nidaamiyo la iska qurxiyaa okay waxyaabo badan oo table ku saabsan waan baran doonaa ka gudub qaybta xigto hadaad fiiriso waxa la dhahaa incorrect spacing wa haddii aad fiiriso meeshan in kooxaas afqalaad iska wada haddii qoraalka gudaha kaga jiro shaxdan aad fiiriso waxaad u jeedaa in qoraalka oo idil iyo derbiga cells-ka ayna waxba u dhaxaynin space hadda xagga sare fiiri lori ba halka ku qoran lorigan iyo derbigan fiir waxba u dhaxeeya space u dhaxeeya inta dhan space u dhaxeeyo okay kan sidoo kale laakiin inta koon fiir wax u dhaxeeya ma laha way ku wada dhagan yihiin leenkii bay ku dhagan yihiin leenka sida u taagnaa bay ku dhagan yihiin dhamaantood so space ma laha space kaas in loo sameeyo marka waxa sameynaysa sidoo kale meel uu qalinka kaga dhufo halka qaybta highlighted meesha afar geeska uu noqonayo muxuu ahaa istilaabku noqonayo qalinka halka ku dhufadeen asaga dhan wada highlighted noqonaya kadib waxaad aadaysaa layout hadda baan joogaaba soo uba sii saarnaa layout kan sigaya layout ka markaan tago xagan alignment aan tagaya alignment-gaas markaan tago xagan maxaa ka muuqdo cell margin click halkaasaan click dhahaya dan xagan fiiri left marka left waa dhinacay ku dhigan yihiin waaba zero wax ku qoran ba male waa ever tiraba uma dhaxaysa iyaga iyo leenka taagan marka waxaan sameeynaa halkan aan waxoogaa ku daraya waxaan click hal mar oo kale dhowr jeer baan ku dhufanayaa adigu inta badan defaultigiisa waa 0.08 anana 0.08 gaas ka dhigaa defaultiga ah then automatically resize to feed contents halkaas iska soo dhib malaataas markaas aan dhigsan okay waa ka soo durqayaan fiir way ka soo sikanayaan leenkii waxaas u dhaxeynaya waka intaas in ka badan hadaad rabtana dii waad ku daraysaa un kanamaad ku daraysaa kanamaad ku sii daraysaa okay ya way ka soo sikanayaan aad bay uga soo sikanayaan waka qaybtaas sameynaysaa okay cilada shanaad oo u dambeysa fiiri hadaad eegto waxaad arkaysaa in table-kan uu ka kooban yahay 1 2 iyo 3 xagga waxa ku qoran item name xagga waxa ku qoran description item name waxa ku hoos qoran marka computer-ka description-kiisa waa kan halkaas ku qoran tahay sorry okay okay no problem no worries what I'll do waxaan sameynayaa inaan idin tusiyo isku dayayaa okay weli okay weli waxaan doonay waxa weeye nidaamka hadda tablada aan nidaamiye iyo iga qasay marka haddaan hagaajinaya dib ma waan helayna okay perfect hadda weeyaan marka lambarka u dambeeyo waxaad aragtaa item name-ka aan haysan waa computers xaggana waxa waaye smartphones computers-ka description-kooda warka leenkaas u galay smartphones-kana waxa waaye description-kiisa laba qayb uu kala baxay macnaheedu waxa waaye labadii cell-kii baa kala sii go'ay cell-kii smartphones ku qornaa kala sii go'ay qaybna boggan hore documentiga no furan buu raacay qayb kalena hoos ugu waday ilaa qoraalkii yaa badan taas marka ha ogolaan tablada marka sameynayso reportada waxa raacayna tan ha ogolaan waa inaad ka saartaa arintan waa inay dhinac cusub wada raacaan ama xagga sare isku wada raacaan oo cell-kan dhinacaas boggaas koowaad ku dhameystirmo ama inuu dhinacan ku dhameystirmo wax ka dhaxeeya malaha soo arrimaha waxa keena marka waxa sameynaysaa adigiyo layout tagaysaa horta qalinka ku dhufsa highlight garayso then layout already waan joogaa waxaan tagayaa marka properties kana tagayaa properties waa table properties click markaan dhaho halkan fiiri waxa laga yaabaa adiga markuu ku furmo dialog box-ka markuu ku furmo inuu table kaaga furan yahay marka rows-ka ku dhufanaysaa
rowgaas ku dhufanaysaa rowga markaad ku dhufato halkan waxaa saaran allow row to break across pages wixii aan halkaa ku qornay halkan ka muuqdo waxaan ku qornay cell breaking across pages rows breaking across pages halkan maxaa ku qoran marka way tigrasanta tigad ka qaadaysa marka tigasaad ka qaadaysa hal mar click leedahay click markaa dhahdo okay aad leedahay okay marka way israacayaan wuu israacay diyaar waaye marka computers iyo qaybteedii halkaas isku raaceen bogga koowaad bogga labaadna labadan toos isugu soo raaceen ana inay qaybna xagga boggaas ay jirto ee documentiga boggiisa koowaad qaybtana dhinacan ay jirtaa la diidaya waa inay dhinac isla maraan اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته halkaas aan kusoo gabagabeynaa cashiro badan oo ku saabsan table waan soo gelin doonaa insha Allah xiga haddii aad cashirkan ka hesho fadlan like saar adiguna isdiiwaangeli si aad ula socoto cashirada soo socda wixii talo iyo tusaalena xagga hoose faalada noogu dhaaf السلام عليكم ورحمه الله وبركاته